kulankan casho sharafta ayaa lagu qabtay mid ka mid ah hoteelada lagu cunteeyo oo ay Soomaalidu ku yaala galbeedka magaalada London waxaana casho sharaftan sameeyeen qaar ka mid ah dadkii dadaalka dheeraa u soo galay sii deynta lamaanaha Britain ee muddo sanad iyo ka badan lagu haystay gudaha dalka Soomaaliya. Paul iyo Richard ayaa cashadan waxa ku weheliyay qaar ka mid ah eheladooda sidaad arkaysaan ba labada dhinac ayay isaga soo horjeesteen si loo sheekaysto waxaana lamaanaha ay aad uga faraxsanayeen casho sharaftan loo sameeyay iyaga iyo waliba qoyskooda oo la socdeen. markii dambe ayay mahadnaq u soo jeediyeen dhammaan dadkii kaalinta weyn ka qaatay sii deyntooda. waliba carabka waxay ku dhufteen TV-ga Universal oo isagoo ahaa warbaahintii sida aadka u hadal haysay sidii loo sii deyn lahaa. wariye Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa barnaamijkiisii maxay kula tahay diiradda aad loogu saaray umurtaasi iyadoo jaaliyadaha Soomaalidana xagga telefoonka kaga qayb qaadan jireen. telefishinada caalamka ayaa iyana mar walba soo booqan jireen stuudiyaha TV-ga Universal si ay u arkaan qaabka barnaamijkaasi u socday. telefishinka Universal oo aan qaban la'aantood inaan lagu guuleysteen in loo tago meeshay joogeen Rachel and Paul oo ku guuleystay inay dadka Soomaalida dhiigooda kiciyaan wixii dhiig loo kaca ayay gaareen inay yiraahdaan. Daahir Kadiyo oo isagu naftiisa u horay inuu hawdkaasi tago halka lagu haystay lamaanaha isagoo gacan weyn ka haystay jaaliyada Soomaalida iyo dawladda ku meel gaarka sida uu isaguba sheegay. dadkii ka qayb qaatay sii doonteeda haday ahaan lahayd dawladda ku meel gaarka haday ahaan lahaayeen maamulka Ximan iyo Xeeb haday ahaan lahaayeen community-ga Ximan iyo Xeeb ku nool. Paul iyo Richard intii ay joogeen Soomaaliya sidoo kale waxay soo barteen cuntada dhaqanka u ah Soomaalida iyagoo nasiib wanaag casho sharaftan loogu sameeyay isla maqaaxid Soomaaliyeed. sidoo kale kooxda qayladaan oo harkacayay Abwaan Cabdi Shire Jaamac ayaa iyana hees caan ka noqotay warbaahinta caalamka u sameeyeen sii deynta Paul iyo Richard. siyada quraankana idino madidino wallo dareera sidaya lamanaha tekeliya duqeedaba kulankan oo ahaa kulankii ugu horeeyay ee lamaanaha Ingiriiska tan iyo markii la soo daayay ay la qaateen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida iyagoo caawa halkan kula casheeyay hoteelkan iga dambeeya ee The Village. waxaana ay Paul iyo Richard ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin kaalinta jaaliyada Soomaalida ee qurba joogta gaar ahaan kuwa ku nool dalkan Ingiriiska ay ka qayb qaateen soo deyntooda. waxa sidoo kale ay u mahad celiyeen TV-gan caalamiga Universal oo isaguna kaalin libaax leh ka qaatay ololaynta sii deynta lamaanahan ee muddo sanad iyo ka badan ku xirnaa dalka Soomaaliya. sidoo kale waxay mahad gaar ah u celiyeen Daahir Kadiyo oo isagu ahaa ninkii tagay dalka Soomaaliya isla markaana gacanta ku soo dhigay lamaanahaasi. Ibrahim Umar Baafe wararka Universal London.